afduubkii loo geystay laba nin oo ka tirsan ururka ONLF oo ka dagaalama waddanka Ethiopia ayaa maanta maxkamad la soo taagay kadib maxkamaddu ay damiin ku sii daysay. labada nin ee booliiska ah waxay wajahayaan dacwad ah in ay u basaasayeen sirdoonka waddanka Ethiopia. labada nin ee la afduubay oo markii dambe loo gudbiyay dawladda Ethiopia ayaa halis gelinaya inuu qabsoomo iyo in kale wareegga saddexaad ee wada hadallada u dhaxeeya dawladda Ethiopia iyo ururka ONLF kaas oo lagu ballansanaa inuu ka dhaco magaalada Nairobi. wariyaha BBC-da Maxamuud Cali ayaa saaka maxkamadda joogay warbixintana looga diyaariyay. labada nin ee ka tirsan booliska ayaa waxaa lagu soo eedeeyay in ay Nairobi ka afduubeen Cali Axmed Xuseen iyo Sulub Cabdi Axmed oo ay geeyeen magaalada Moyale ee dhinaca dalka Ethiopia. waxayna ahayd markii labaad oo ay maxkamaddu soo qaado dacwadooda, waxaana midkiiba lagu sii daayay damaanadan 2 milyan oo shilinka Kenya ah una dhiganta $24,000. afduubka ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay hotel ku yaala magaalada Nairobi 26 bishii hore ee January, waxaana lagu eedeeyay saraakiishan in labada nin ay baabuur ku kaxeeyeen kadibna ay ku wareejiyeen saraakiisha Ethiopia. ay beenayeen eedaynta loo soo jeediyay dacwadooduna waxaa dib loo dhageysan doonaa 31 bisha March ee sanadkan. Cali Axmed Xuseen iyo Sulub Cabdi Axmed ayaa waxaa la sheegay inay ahaayeen saraakiil sare oo ka tirsan ONLF, waxaana la sheegay inay u joogeen Nairobi si ay uga qayb qaataan wada hadallada u dhaxeeya Ethiopia iyo ururka ONLF. afduubka saraakiishan ayaa haatan waxaa la sheegayaa inay halis ku tahay wada hadallada. mid ka mid ah dhexdhexaadiyaasha wada hadalladani ayaa BBC-da u sheegay in qorshuhu ahaa in wada hadalladu oo la isku bari waayay 2012 lagu wada inay dib uga bilowdaan dhawaan magaalada Nairobi. Maxamuud Cali Maxamed, BBC, Nairobi. haddaba waxaan khadka taleefanka kula xiriirnay isaga oo ku sugan magaalada London xogayaha arrimaha dibadda ee ururka ONLF isla markaana ah madaxa guddiga uga qaybgalaysa ururka ONLF wada hadallada Ethiopia. waxaana weydiiyey wada hadalladaasi halka ay marayaan ama ay ku dambeeyeen. wada hadalladu horta waxay istaageen bishii October 2012 waxaana isku point of procedure baa isku khilaafay kadib dawladda Ethiopia ka baxday ayadoo shuruud markaa aan ugu heshiin marka hore soo dhigtay annaguna aan maaragtay shuruudii waxa ka baxaysan modality lagu heshiiska hore lagu seexday. taa waxay keentay markii dawladda Ethiopia inay gadaal u gurato runtiina duruufaha ay haysto ninkii madaxda ka ahaa barnaamijkan bilaabeen meesha uu ka baxay. waxay noqotay marka khilaafaad gudahooda iyo siyaasasha badan dib bay u gurtay. waxaan dareemaynaa arrin intaan leenahay oo ay ku saabsanay wada hadalka, laakiin soo marka aduu kama samrin dawladda Kenya iyo dawlado kale oo wax ka bixinayay kharashka wada hadalka fangareynayay muddo badan baa marka diplomatic shuttle badan baa iska socday. marka hadda waxaa soo ururaya oo runtii la filayay in maaragtay mar labaad haddana la iswajaho bishan January ama February ilaa maaragtay March possible ay noqon karto haddii shuttle diplomacy-gaas uu hirgalo in mar labaad la soo fariisto wixii substantive issues-ka laga hadlayaa la filayay. marka tan lama filayn arrintan waxaa runtii la isweydiin karaa dad badan baa soo oran kara show qoliyo spoilers waxaan sameynaya doonaya wax inay taasaa lagu fasiri karaa, laakiin guud ahaan waa rajo badan bay jirtay wada hadalku dib u soo noolaan karo. marka wada hadalkaasi dib u soo noolaanaya haddii ay noqoto arrintani maxay u dhimi kartaa wada hadallada? horta bini'aadamku markuu wada hadlayo in la heshiiyo la doonayo waxaa sal waa is-aaminaad good faith inay jirto. marka haddii dawlad ay ergadii afduubayso heshiiska la gaaro berito see loo aamini karaa waa su'aal weyn oo taallo weyn oo la isweydiinayo. dadka kale heshiiskay kula gaaraan berito ma honor garayn doontaa credibility-ga dawladda Ethiopia dawladnimada baa arrinta ayay miiska soo saaraysaa. laakiin waxaa weeyaan annagu hadda waqtigan xaadirka maadaama baaris ay socoto ilaa aan ka ogaano baarista xaqiiqadeeda oo ragga waxay ku dambeeyeen aan ka ogaano waxaa ku xigaya markay baarista caddaato ragga ay soo baxday inay fuliyeen talaabada labaad ay qaadaan oo hadday gudahooda ayagu ay liiway jiraan oo dad ayaga raalli ka inuu fuliyey inay dadkaan nabadgelyo kusoo celiyaan sida xeerka caalamku sheegayo. haddii intaa yeeli waayaan marka waxaa weeye is-aaminaad ma jirayso xaqiiqo weeye. marka haddii is-aaminaad jirin lama wada hadli karo. kaasi waxa uu ahaa xogayaha arrimaha dibadda ee ururka ONLF isla markaana ah madaxa guddiga qaabilsan ururka ONLF ee wada hadallada Ethiopia Cabdiraxmaan Mahdi. halkaasi aad ka dhageysanaysaana oo laanta afka Soomaaliga ee BBC.